لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بداوديال meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada TV-ga Somali Channel. Toddobaad walba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa qodob muhiim ah oo markaasi taagan inagoo ka eegna dhinacyo ay ka mid yihiin horumarka, hiigsiga iyo dhibaatooyinka ay inta badan la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. toddobaada kan barnaamijka waxaa marti igu ah Nasro Aadan Cumar oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ee xarunta Kenya isla markaasina dhibaato loo gaarsiiyay iyadoo u shaqeynaysa bulshada Soomaaliyeed. waxay Nasro nooga warbixin doontaa hiigsigeeda iyo waliba dhibaatooyinkii soo gaaray inta ay ku guda jirtay shaqada warbaahinta. daawadayaal toddobaadyadii hore barnaamijka waxaynu ku soo qaadan jirnay qodobo muhiim ah sidoo kale waxaa marti noogu ahaan jiray qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Nairobi iyagoo markaasi qofka martida ku ah barnaamijka su'aalo weydiiya balse toddobaadka kan barnaamijku uu ka duwan yahay. aniga iyo Nasro ayay su'aaluhu nagu koobnaan doonaan maadaama Nasro ay tahay qof dhibaatooyin ay soo gaareen. waxaan jeclaystay in aniga iyo Nasro kaliya nagu koobnaadaan بإذن الله تعالى تدبادية dambe ayaanu jecelnahay in sidii aad u barateen uu barnaamijku noqon doono. Nasro marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku yiraahdo ku soo dhawo barnaamijka dhalinyarada TV-ga Somali Channel anigoo kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo wareysigaaga aad nala siinayso aniga Somali Channel iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysaba. su-aashayda ugu horeysa waxay noqonaysaa Nasroy marka ugu horeysa maxaa kugu dhaliyay inaad saxafiyad noqoto? waa maasan tahay Maymuun Cabdirasaaq. waxa igu dhaliyay inaan noqdo saxafiyad inaan bulshada inaan wax u qabto cid igu dhiirigelisa malahan oo aniga nafsadeeda aan ahayn because nafsadeeda jeclaysatay inaan bulshada wax u qabato hal jeerna bulshada indhahooda inaan noqdo. ومحسن tahay shaqada warbaahinta markaynu eegno waa shaqo adag markii la yiraahdo gabdhaha dhalinyarada ama gabdhahana dabcan way u nugul yihiin dhibaato kasta. shaqada tanina waa shaqo adag marka waxaan jecelahay inaan wax ka weydiintii aad ku guda jirtay maxaad dhibaato ama caqabado la kulantay? sida ogtahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya inta badan qallaasa ka dhacaan oo ama qof walba lagu dilaa ama shakhsi ha aad ama warbaahin ha u shaqeeyaan. 2012 kooxaha hubeysan ayaa isu hanjabeen aniga hanjabaadooda mid aan qaadatay ma ahan oo hadafka aan lahaa wili waan ku sii taaganahay. waxay igu hanjabeen in aan faraha kala baxo waxyaalaha aan ku jiro oo shaqaale maadaama wasaaradda ku dhex jiro murtad ayaa tahay kana dhaxbax waxa aan ku jirtid. waayahay bal waxaad nooga warantaa hanjabaada iyo muxuu hayto lagu geystay kadib maalintii Jimcaha 12 bishii tobnaad 2012 bay ahayd markii adiga Muqdisho dhibaatada lagu geystay. bal maalinta Jimcaha maalintii ka horeysay waxa aad dabcan qalbigaaga ku jiray amniyadaada ku jiray iyo waxaad hiigsanaysay inaad aniga iyo bulshada banoo soo bandhigtaan jecelnahay? waa maasan tahay Maymuun Cabdirasaaq. maalintaas maalin xasuus gaar ay leedahay aniga maalmaha kale tuwa iiga duwan tahay. anigoo gurigayga joogo oo hool shaqo markaas aan ka baxay xaafadeeda aan iska aaday ayaa waxa isku dayeen kooxaha hubeysan inay dhibaatooyin i geystaan. way u suurtagal weysay abaarihii 3 saac habeenimo ay rabeen inay meeshaas kooxaas hubeysan ay dhibaatooyin igu geystaan laakiin alla mahadiisa waaye oo waan ka badbaaday. abaarihii 4 saac subaxnimo oo ay tahay maalin Jimca oo maalin dadka iiga duwan tahay kooxaha hubeysan dhaqaaqayaal ay waxay igu geysteen xaafadda degmada Wardhigle warta nabada gurigayga hortiisa.
gurigan ka soo baxay waxaan u hiigsanaa dhinaca shaqada ayaan rabay inaan aado guriga ayaan ka soo baxay saacada abaarihii 4 saac ahayd banaanka ayaa taagnaa kooxo dhabar qabayaal ayaa isku dayeen inay dhibaato ii geysteen wayna ii geysteen bal waxaad nooga warantaa Nasray siday dhacdadu u dhacday saacadii la dilayay waxaa garabkayga soo istaagay wiil dhalinyaro ah oo magaciisa aan inta ku soo sheegi karin ayaa ii imaaday wuxuu isku dayay la kafkaftamay waana kooxaha dharqabayaasha ayuu ka tirsan yahay anigana ma fahansanin la kafkaftamay markii dambe mahama dil oo habaryar igu aadan oo meesha ku gadanaysay rooti iyo hilib iyo wax qudaar iyo iskaga ganacsanaysay ayaa waxay ii wacday waxay tiri Nasray waan u soo jeestay markaan u soo jeestay aan soo eegay maamadii way iga aamustay hadal bay idhaahday oo ila kaftantay dharqabihii rabay inuu mishinkaas u fuliyana nin ayaa la socday marka wiil kale oo dhalinyaro ah agteeda ayuu taagnaa marka ayadoo saas ee tahay ayaa geeskayga midig wiil dhalinyaro ah taagnaa wuuna igu dhignaa wuxuu dhignaashaas igu dhignaa tilmaam waxay u tahay argagixisada inuu ituso argagixisadaas oo tahay inay wax hub iyo waxyaalo ay inta badan dadka ku dilaan kooxaha weysan bistoolad ila soo baxeen Nasro intuusan baaskoolada kula soo aadin waa u jeedinay maya uma jeedin museyga u jeeday inuu ii baaqo isku dayay balse waa u suurtagali weysay oo naftiisu ku qamaari waayay saas laajigeeda ayaan kooxaha hubeysan dharqabayaasha bistoolada ula soo baxeen ugu yaraan 8 xabadood ee igu shaqshaqeen igu dhufteen marka saas ay tahay maadaama dhibaatooyinka ii geysteen xabadiin ee igu dhaceen nolol iyo geeri ah u dhaxeeyay ilaa oo ruux kamid ah familkayga oo imaado uu dhaho meedka meesha laga xareeyo just laakiin qofka wuxuu idahayo ama uu sida ninka ii gadgadinayo ninka wuu ii gadgadiyay way kooxaha dharqabayaasha oo dhibaatada ii geysanayeen ayuu kamid ahaa si qofka ugu horeeyay xabada igu dhufto ayuu ahaa markii xabadaha igu dhameeyeen inoo waan dhacay dhulkan ku dhacay lugtiisu ninka igu gadgadiyay sida in aniga naf ay igu jirto kaleeto because aniga markii xasmiir waa leeyahay laakiin ma hadli karin sidaas laajigeeda uu ninka iiga tagmay waa dareemaysa laakiin uu qofku dul taagan yahay waan dareemay inuu qof dul taagan yahay uu wax igu sameynayo waan dareemay laakiin awoodii just aan ku hadli lahaa ama indii ku kala qaadi lahaa maana lahayn familkayga qof kamid ayaa soo istaagay oo dhahay sida walaalkayga habaryartay dhashay oo hadda Suudaan ku nool magaciisana ma sheegi karo geeskayga waxaa taagnaa oo ay oonayay ayayadii hooyada dhasho inta la soo ekeysay aad aan u jeclahay iyo gabar ana ila dhalatay ayaa taagnay familka way wada taagnaayeen erayga aan maqlay wuxuu ahaa aniga meedka hal soo xareeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun taas waxaa ku dheer markii dhibaatooyinka ii geysteen waxaa liigay gargaar ahaan degdeg isbitaal xaafada u dhow ayaa liigay wuxuu isku dayay dharqabayaasha dhibaatada ii geysteen isbitaalka inay iga daba imaadaan abaal ayaa uga haya wiilka isku dayay inuu i badbaadiyo magaciisana ma sheegi karo irid kaleeto oo waxaa jirto isbitaalka oo looga bixi karo way serious ayaan ahaa nolol iyo geeri u dhaxeeyay saacado gudaheeda ayay iigu imaadeen isbitaalka gargaar ahaan degdeg laga geeyay oo xaafada ku dhex yaalo waxaan isku dayeen inay isbitaalkii igu dhameystiraan waa maasantahay Maymuun Cabdirasaaq xabadii igu horeysay horta waligay farka ma jabin meel kama dhicin just qofka markuu wax ku dhacayo in badan aniga report u baxwaan arkay dad dhibaatooyin ku dhacaan laakiin aniga qaasatan nasr ahaanteeda iyo nafsadeeda waligay dhibaatooyin iguma dhicin waxa ila mid noqotay qof xaasinimo dhagax igu dhufanayo kaleeto ayay ila mid noqotay balse markii la dhahay gabadha way soo dhacday qabta waan dareemay dadka oonaya iyo dadka hadlayaan sida kale ayagana waan dareemay laakiin
waa mahadsan tahay Nasroy bulsho badan baa ku daawanaysa waxaan jeclaan lahaa marka adigoo raali inaad halka u sharaxdo dadkii way ku soo ag istaageen dadkii dabcan falka ku geysanaya qof xabadii ugu hor bulshada horta way fiican tahay inay ogaadaan qof xabado ku dhaceen oo weyn 8 xabo ku dhacday oo nool way la yaab la noqonaysaa waa ikana aniga taagan maanta oo hortooda bulshada taagan oo na u sheegayo qofka bini'aadanka maalin inuu dhimanayo oo tiisa ay dhamaanayso xabada koowaad markaan ka hadlo sida iigu dhacday xabada koowaad sida u jeedin halkaas ayay iiga dhacday intay ka baxday because meesha ka baxday iyo meesha ka gasho meesha ka baxda weyn xabadii koowaad sidaasay ku dhacday xabadii labaad sidoo kale ayadana meelahan iga dhacday sida naaska midig ayay ka baxday gacmahaaga gacan ka mida naafay ku tahay haddana wax waad qortaa haddana wax waad akhrisaa haddana shaqadii warbaahinta weli waad ku guda jirtaa oo weliba dhanka editinka waad qaabilsan tahay bal taasna ka waran waa maasantahay Maymuun Cabdirasaaq horta qofka bini'aadanka markuu wax ka niyajabo wuu ka niyajabay oo wixiisu uga niyajabay iskuma taxaluujinayo laakiin aniga nasal ahaanteeda mowqifkayga iyo hamigayga wuxuu yahay inaan bulshada wax u qabto maadaama dhibaatooyin soo gaareen gacan naafa aan ka ahay saas ay tahay maanta waxaan ka tirsanahay shaqaalaha TV-ga qaranka laakiin qaasatan shaqaalaha TV-ga kalsan aan ka howlgalaa waxaan u qaabilsanaa qaybta editinka waana sameeyaa waa shaqo walba leedir waan ka soo baxaa waxna waa akhriya waxna waan qoraa because uma calo misdahay maanta naafa tahay wax ma qabsan kartid waa dhiban tahay isma dhahay wali waa si dhiirigelinaya inaan wax qabsan waa mahadsan tahay Nasroy dhanka ka waran wararka inaad soo tabiso ama soo jeediso report horta aniga ma tobin kari oo ma akhrin kari sida dadka anaga report aan dhahnaa laakiin dadka dhalinyarada ama shacabka bulshada warka la akhrinaya dhahaan ma akhrin karo because waxaan u akhrin karin sida u jeedid carabkii iyo afkii xabada ku dhacday oo culays ayaa ku jiro ma akhrin karo oo ama live to uma soo gali karo ama cod ma saari karo laakiin editinka iyo barnaamijyada soo saarista oo kale to waan sameyn karaa oo waan ku fiicana oo hadafkaygu wili warbaahineed ama bulshada arab inaa wax uu Nasri haddaan su'aal kale ku weydiiyo shaqadan warbaahintaad ku guda jirtid waa lagu dhibaateeyay markaad iyada laftigeeda ku guda jirtid maxaa dareentaa murugaan dareemaa sida marka aniga dilo kala dhibaatada lii geystay isbitaaladka aan aalay waxaa la dilay maxamed xasan absuge oo wariye oo ka tirsan wariyaasha muqdisho ka howlgala saacadihii la dilay saacado ka hor ayuu isbitaalka igula sugnaa oo soo booqday waa la dilay subax markaan maqlay aad uga xumaaday anigoo hadli karin diibaan cali nuur saacadaha la dilay saacado ka hor isbitaalka igu imaaday uu banaanka ii soo bixiyay igu soo codsiinayay gaariga curyaaminta anigu ku fadhiyo asaga iyo cabsidaar daahir sabriye laakiin saas ay tahay isla daqiiqadihii lii soo sheegay geeridooda waxaan dareemay cabsi iyo murugo aad u badan ayaan dareemay marka hadda ugu dambeeyay jaamac dabraani oo la xiray wariye ka tirsan shaqaalaha wariye ka tirsan telefishinka Somali Channel oo lagu xiray Puntland aad uga xumaaday xariga loo geystay maadaama inta badan warbaahinta waxay ku shaqeeyaan si madaxda adag ay ku shaqeeyaan reportka markay soo duubaan hatubinin iyo waa tubinaya waayo wariyahan wuxuu warka u soo duubay inuu bulshadiisa wax u qabto ayuu wax walba u soo sameeyay haddii aan warkii aan diro madaxda dawladda kama badbaadayay haddii madaxda dawladda warkooda u sameeyo kama badbaadayay dalqabayaasha oo inta badan wariyaasha dhibaato u geystaan marka haddaan ahna wariyaal meel walba caalamka aan ka joogno dhibaatooyin badan way nagu dhacaan qaasatan badan inta badan way ka niyad jabaan laakiin ani waxaan taaganaa maadaama aan gabar Soomaaliyeed ahna dhalinyaro ahna ka tirsan telefishinka Somali Kalsan TV waxaan dadka u sheegayaa qof walba hami leh inuu wixii hamiga u leeyahay uu ka niyad jabin uu horumarkiisa gaaro meelka qaarkood feeriyayga dhiigay tufayaan markaan ayaan joogo ama maalmo aan joogo
sida oo kaleeto markaan cadeysanayo kaleeto ciridkayga dhiigaa ka imaado dhaqaatiir badanaa la xiriiray taas waxaa iga sii dheer xabad ayaa igu taagan xabadaasoo meel xun iga taagantahay laakiin way iga soo dhaaftay meel kore hadda taagan tahay hay-adooyin inta badan inta ka shaqeeyaan waan la xiriiray hay-adooyinka UNCR waxaa liigu dhahay isheeg waa luu qalayaa laakiin neefaan qabaa inaa neeftaas u dhimatid aa laga yaabaa marka dhaqaatiir badan inta waa la xiriiray dhibaatooyinkaygana way la socdaan marka koley waxaan dhaho ma laha ilaa unbaa tala saartay hadafkaygana waa inaa bulshadeeda wax u qabto dadkayga wax u qabto mar un ma ka niyad jabaayay waayahay Nasro hadda gacantan naafaad ka tahay gacanta kale waxaad sheegtay inaad iyadana ka dhibaataysan tahay kalsanna editinka u qaabilsan tahay bal maxaad caqabado la kulantaa intaad hawshaa ku guda jirtid markaan shaqadii aan ku jiro meelaha qaarkood riboodyada oo kaleeto ama wararka laga soo duubayo kale markaan tago dad aqoon markaan arko waan cabsanayaa haddana waxaan u dhabar adeegaa dhabarka u dhigtaa inaa ahay qof bulshadeeda dadkeeda wax u qabanayso haddaan dhimanayan anoo howlahayga shaqo ku jiro inaa dhinto teeda markay dhammaatan inaa dhimanayo aan aaminsanahay marka editing sameynayo oo warka badan markii la keeno editing lagu sameeyaa editingka markaa ku jiro markii aan rabo inaan saan soo dhaho aan sameeyo laba aad iyo aad marka taas laga soo tago ma jiraan caqabado kale oo aad hadda la kulanto waa la kulmaa caqabado mar saa u joogo waan damqanayaa korkay meel la taaban karo ma lahan dhiigaan tufayaa marka dhiigayga aan tufa aan is arko maxaa is dareensiinayaa cabsi maxaa keeni karo dhakhtaraan aadaa dhakhtarka wuxuu leeyahay dhakhaatiirta Kenya badan inta waa tagay wuxuu iigu jawaabayaa feerahaaga ayaa wax ku jiraan sababta keenaysa in feerahayga dhiig tufaan waa xabadaha igu dhacay iyo xabada igu jirto sunteeda Nasro adigoo dhibaataysan baad haddana shaqada warbaahinta shaqo adag qabata waxaa jira gabdho kula mid ah ama dhigaaga ah oo aanan dabcan sidaada oo kale u dhiiranayn maxaad oran lahayd waxaan u sheegi lahaa maadaama dhalinyaro ahay gabdho dhalinyaro iyo dad dhalinyaro ay wada joogaan sida aa u jeedin waxaan iga codsan lahaa in hadafkiina ama warbaahin ha ahaato ama shaqo kale ha ahaato haddii xataa hanjawaado ama waxyaalo qaarkoodna lagu sameeyo ha uga janjixina u dhawaal adeega waxaa ku haminaysa inaa heer ka gaari doontid waxaan aaminsanahay heerkaa maanta gaarsiisanahay heer ka mid ah inaa gaari doono Maymuun taas aaminsanahay waa qof walba suu isku dhiirigeliyo waaye hadduu isliido marka qaarkood saa u joogo markaa dadka hablaha kaleeto gabdhaha kale markaan arko waxaa isleeyahay qofkaas maanta wuxuu qabsan karaa wuu kaa qurux badan yahay masna haddana waxaa is dareensiinaya inuusan qofkaas wax i dheerin waa mahadsan tahay mar kasta waxaad maqashaa wariya Muqdisho lagu dilay meer kala wariye lagu xiray wariya la dhibaateeyay maxaa dareentaa markaa wariyaas si xun madax adag ku shaqeeyaa saas ay taa asoo shaqeynayo oo howlihiisa shaqo gudanayo wariyaha haddii uu asaga shaqadii uu si qalad u sameeyo madaxda agaasimayaasha ayaa laga rabaa wariyaasha oo ka howlgala magaalada Muqdisho qof walba madaxuu leeyahay TV walba madaxuu leeyahay idaacad walba madaxuu leeyahay haddii madaxda TV-yaasha madaxda idaacadaha ay isgarab qabtaan gacan is siiyaan wariyaasha dhibaatooyin inay gaarayna aaminsanahay dadka iga daawanayaan qaar ahaan bulshada Soomaali Channel wixii ama ku xiran ama isku xirnaanin waxaan u sheegaa meel walba oo caalamka ay ka joogaan qof walba hadaf uu leeyahay hadafka leedahay gaar ha uu jinjixin wax walba oo lagu sameeyo u dhabar adeeg horumarna nafsadaada noloshaada adiga ka gaari karta taasaan ugu baaqayaa waa mahadsan tahay Nasro waan kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga qaaliga ah iyo waqtigaaga aad noo hortay iyo sida aad dabcan bulshada ugu soo bandhigtay dhibtaada gabi ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijkii dhalinyarada TV-ga Somali Channel oo ay marti ugu ahayd mahadaya ka gaadhe Nasro Aadan Cumar oo ka howlgasha TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Nairobi anigoo Maymuun Cabdirasaaq ayaa barnaamijka idin soo jeedinayay Cabdifataax Jante ayaa dhanka kaamirada iga qaabeynayay intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono aniga iyo waliba Nasro iyo Cabdifataaxba waxaanu idinkaga tagaynaa nabadiina iyo nooli kulanti